أنت أسمى أنت أنقى ninku noocu doonaya ha ahaadee isagu ma qadaasad buu leeyahay warkiisu waa dhag uun miyaa maya isagana waa la dooranaya waa qof bani aadam oo iyadoo kala marka iyadana caruurteedu waxay hiilimaad uga baahan yihiin markay nin guursanayso marka intay silci lahayd ay darxumoon lahayd ee eedaadi lahayd marka dambena afka goosan lahayd waa inay oday wanaagsan xulataa oo aanay qaadin uun guur iyo jacaylkii iyo hamada ay dumaru qabaan rag waa inaanay taasi laab qaadine waa inay caga dhigataa u fiirsataa oo ciddii kalena cashara ay ku qaadata marka arrimaha loo eegaya ninka marka la xulanayana nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam sida marar badan maqasheen waa diintii akhlaaqda idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawijuuhu illa taf'alu takun fil ardi fitnatun wa fasaad markuu idinka soo doonay inanta qof diin iyo akhlaaq leh u guuriya si aan balaayo u dhicin marka iyadana waa diin iyo akhlaaq isagana waa diin iyo akhlaaq gobonimadu labadaasay ku jirtaa qof akhlaaq wanaagsan oo diinna helay labadaba waa guriga quruxda badan ee structure-kiisana ama dhismihiisuna wanaagsan yahay subqigiisa iyo rinjiga lagu cidaaday ee lagu hagaajiyeyna uu qurux badan yahay ee dhalaalkaana weeye hadduu qofku akhlaaq xun yahay diintu waa sibqat allah diintu way qurqurxinaysaa laakiin akhlaaqdiisii dhabta ahayd meesha kama saarayso haddii uu akhlaaq wanaagsan laakiin aanu diin lahaynna dhacdhac laga waayi maayo ama waxaaba laga yaabaa qof gaala inuu noqdo nasiixadaasi aad bay muhiim u tahay dadkuna maanta waynu ognaho wax kalaa la isku doortaa waxyaabo kale ayaa la isku doortaa mana sii raagaan runtii arrintan waxaa islaamku u dhiirigelinayaa waa shay jeclaysiinaya ummadda diinta dad badan baa marka ay ogaadaan qofka waxa loogu xilanayaa inuu yahay diintiisa hadday ragga yihiin iyo hadday dumarka yihiinba qofku diintiisu hagaajisanayaa wuxuu leeyahay kol haddaanad gabadh kale helaynin oo mujtamac aanad qof wanaagsan ka helaynin adigu wanaagsanow buu qofku odhanaya marka dhaqankiisu wanaajinaya sidee loo guursan karo oo aan loo odhanin waa dawdare ha iska tago inantiina waa xijaabanaysaa way cibaadaysanaysaa akhlaaqdeedii bay ilaalinaysaa way xushoonaysaa waayo waxay ogtahay inay guur beelayso marka waa arrin islaamku uu ku dhiirigelinaya jeclaysiinta diinta